ay ku jiraan ay uga qayb galayaan ololaha hadda socda waxaan leeyahay horta garbihiinaan nahay intii wax garata laakiin adinku haddaad ka fadhiisataan hashiina kici mayso kolley taasna waa iska warsateen aan malaynaa fursado badan ayaad leedihiin oo heer isteed ah hadday xildhibaanadii tahay haddii wasiiradii tahay ilaa heer agaasime ilaa ku-xigeenno gobolkaad wax ku leedihiin degmadaad wax ku leedihiin deegaankaad wax ku leedihiin marka intii la idin aqooni lahaa inaad aqooshii wax ku yeelataan ogaataan waxaad ka hesheen wixii idinka maqnaada raadsataan xaq baad u leedihiin waan soo dhaweynaynaa si hordhaca inaad fikirkiina iyo waxaad fagaaraha la tegi lahaydeen aad hore usii qaadataan hana ka badbadininoo wixii aad leedihiin keliya raadsada haddii aan la yidhaahdo baryahan waxaan dareemaynay waxba ma hayno aa gabdhuhu leeyihiin wax waad haysaan laakiin wixii idinka maqan insha allah ma jiro kaalin aanan ku jirin ma jirto laakiin meeshii aad rabteen inaad ku joogtaan ayaadnan gaarsiisaneen waa la idiin qiran yahay odayaalka waa la hadasheen dhallinyarada waa la hadasheen marka waxaan leeyahay haddii aad intaas ka bacdi maryaha sii babisaan allow aan la dhihi gabdhuhu way ka badbadiyeen kaalintiina inaad qaadataan annaguna aan idinku garab istaagnana diyaaraan u nahay dowladda noo dhismaysa mid lagu guulaysto oo gabdhuhu hormuud ka yihiin allaha ka dhigan leen kolley anigu degmadan joogaaye kalabar degmada in gabdha laga dhigo diyaaraan u ah waxaana ogaa doontaan markii heerkeeda la gaaro broseska degmada isagoo socdo yaa midkii galmudug waxaa weeyaan sida tan loo bedelay marka degmadu waa soo socotaa teedu markii hadda statetka laga baxo diyaar baan u ahay in ummadda tartan loo qabto oo ninkii musharaxa la ogaado oo golo deegaan la dhiso waxaan sheegaya ruriya been maalintaasaad ku tegaysaan marka waxaan leenahay hore u socda haddii alla yidhaahdo kulankan inaan ka soo qayb galana waa ku faraxsanahay waxaan leenahay si guud gabdhaha kaalintooda ha la siiyo ayaguna intii ilaahay ugu talagalay aysan dhaafin soo dhawaada ha isdhihinina ragga dhan waa idin neceb yahay ma jirto cid idiin tashatay ma jirtee waa laga yaabaa laba meel ku leexatay inay luuq idinla gasho waa laga yaabaa wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu